asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii gorfaynta ciyaaraha. qodobada barnaamijkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah liigaha oo haatanba uu magacaabay tababaraha ku guulaystay macalinka bisha, ronaldo oo Messi ku garaacay rikoor caalami ah, faransa football oo soo saaray go-aan culus oo ku aadan ku guulaystaha Ballon d'Or-ka, Manchester United oo daaha ka rogtay sababta onaana looga diray kooxda, maxaa ka jira in Turkiga uu ka dambeeyey baasaboorka iyo Mali la xaday, Zidane oo la ogaaday kooxda uu doonayo inuu ku biiro, Liverpool oo ka hortagtay xiisaha Real Madrid, Carlito lagu eedeeyay wax ka dhana ciyaartoyda Barcelona, Suarez oo dhibaato culus ku horseeday Lionel Messi iyo saaxiibadiisa, khilaafka Madrid iyo shabakada bixisa Ballon d'Or oo cirka isku sii shareeray, iyo weliba Luis Figo si lama filaan u magacaabay labada xidig ee ugu fiican labada kooxood ee xifaaltama ee Barcelona iyo Madrid. aynu ku bilownay macalinka Real Madrid Xavi Alonso ayaa loo doortay tababaraha bisha Agosto ee La Liga, taasi oo markhaati u ah bilowga riyooyinka leh ee kursiga tababarnimo ee Santiago Bernabeu. Alonso ayaa kooxdiisa u horseeday guulo isdaba joog ah oo ay ku gaareen Osasuna, Real Oviedo iyo Real Mallorca, isagoo saddexdii kulan dhaliyay 6 gool halka kaliya laga dhaliyay 1 gool. guulahaasi ayaa Madrid ku hogaamiyay horyaalka iyagoo leh 9 dhibcood, halka kooxda ay xifaaltamaan ee Barcelona ay leedahay 7 dhibcood, kaalinta afraadna ay ku jirto. xidigii hore ee Madrid iyo Spain ayaa rajaynaya inuu sii wado qaab ciyaareedkiisa wanaagsan, isagoo toddobaadka soo socda wajihi doona Marseille kulanka ugu horeeya horyaalka UEFA Champions League. inkastoo tartankii u dhexeeyay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Andres Messi uu marayay heerkiisii ugu dambeeyay ee xirfadeeda ciyaareed, haddana labadooduba weli waxay sii wadaan jebinta rikoorada. xidiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa haatan hogaaminaya tartankaasi kadib 2 gool oo u dhaliyay xulkiisa kulan 5 gool iyo eber ay ku adkaadeen. labadaasi gool ayaa ka dhigay Ronaldo inuu gaarayo 38 gool isreebka FIFA Club World Cup, taasi oo ka dhigaysa in 2 gool uu ka sarreeyo Lionel Messi oo leh 36 gool. hadda waxaa Ronaldo ka horeeya hal ciyaaryahan oo keliya, Carlos Luis oo u dhaliyay 39 gool xulka Guatemala, taasi oo ka dhigan inuu yahay gooldhaliyaha ugu sarreeya isreebka koobka adduunka. Ruiz ayaa 68 gool u dhaliyay Guatemala 133 kulan oo caalami ah, isagoo hore ula ciyaaray David Beckham, London Nodef, xilli kuwaasi ay ku wada sugnaayeen El Galaxy. dhanka kale Ronaldo iyo Messi ayaa weli leh gooldhaliyayaasha ugu sarreeya xulalkooda. Cristiano Ronaldo ayaa u dhaliyay xulka qaranka Portugiiska 140 gool 222 kulan, halka Lionel Andres Messi uu u dhaliyay 114 gool 194 kulan. Ronaldo ayaa hadda u dhow inuu jabiyo rikoorka taariikhiga ee ka dhigi kara ciyaaryahanka ugu goolasha badan isreebka koobka adduunka. faransa football ayaa xaqiijisay isbedel weyn oo ku saabsan sida loo bandhigi doono abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadkan. sida uu sheegay gaasimaha jariirada Vicente Garcia, magaca guulaystaha wuxuu ahaan doonaa sir ilaa iyo xafladda rasmiga ah ay ka dhici doonto 22 Sebtembar. si ka duwan sanadadii hore, guulaystaha laguma wargelin doono ilaa uu hananayo abaalmarinta. tani waxay ka dhigan tahay inaysan jiri doonin sawiro hore oo loo qaaday ama muuqaalo la sii diyaariyey. Garcia ayaa sheegay in ujeedadu tahay in la abuuro xiiso badan, sir la ilaaliyo, isla markaana la sameeyo saameyn weyn marka natiijada si toosa loo shaacinayo. sanadkan waxaan rabnaa in Ballon d'Or-ka uu noqdo wax dhab ah oo la yaab leh, Garcia ayaa u sheegay warbaahinta, isagoo xaqiijiyay in taageerayaasha iyo ciyaartoyduba ay sugayaan ilbiriqsiga ugu dambeeya ee lagu dhawaaqayo. xidiga Paris Saint-Germain Ousmane Dembele iyo daayarka Barcelona Lamine Yamal ayaa loo arkaa kuwa ugu cadcad abaalmarinta. si kastaba, guddiga kama dambeyska ayaa soo saari doona suurtagalnimada iyo magac lama filaan oo lagu dhawaaqi doono habeenka xafladda. iyadoo xafladdu ay dhowdahay, taageerayaasha kubadda cagta adduunka oo dhan ayaa si dhow ula socda cidda ku guulaysan doonta abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican kubadda cagta waqti xaadirka. kooxda Manchester United ayaa go'aansatay inay amaah ku dirtay goolhayaheeda Cameroon Andre Onana kadib markii tababaraha cusub ee kooxda Robin Amiron uu walaac ka muujiyay joogitaankiisa. war laga helay gudaha Old Trafford ayaa sheegaya
in Almiron uu sheegay madaxda kooxda in joogitaanka goolhayaha sumcad weyn ay kursiga kaydka u fadhiya ay abuuri karto culays aan loo baahnayn, gaar ahaan goolhayaha da'da yar ee 23 sano jirka Semi Lamanis oo dhowaan uga yimid kooxda Royal Antwerp. Almiron ayaa ka baqay in saxaafadda iyo hadalhaynta joogtada ay dhaawacdo kalsoonida Lamanis isla markaana ay qalqal geliso jawiga kooxda. Si arrintaasi looga hortago, United ayaa go'aansatay in Onana uu si ku meel gaara meel uga baxo ciyaareed, fursad joogtaan uu ka helayo oo dib ay ugu soo ceshto qaab ciyaareedkiisa. Go'aankaasi ayuu si buuxda u taageeray tababaraha kaasi oo doonayay in uu dhiso deganaanta iyo wax mashquul ah inaysan ka jirin kooxda. Inkastoo tallaabadan ay si lama filaan ku noqotay taageerayaasha, haddana waxay muujinaysaa sida Almiron mudnaanta u siinaya ilaalinta kalsoonida goolhayaasha iyo xasiloonida dhabta ee kooxda ka dhaxaysa. Kadib guuldaradii 6-0 ahayd xulka Spain xasuuq ugu geystay Turkiga 8 September, daayarka kooxda Barcelona Lamine Yamal ayaa la sheegay inuu waayay baasaboorkiisa, arrin keentay in la joojiyay bixitaanka kooxda Spain si baaritaan degdeg ah loogu sameeyo qolalka ciyaartoyda. Warar ka soo baxay ayaa tilmaamaya in qaar ka mid ah ciyaartoyda Turkiga ay si ula kaca kaga dambeeyeen in la xado baasaboorka kadib markii lagu eedeeyay inay si joogto ah u beegsadeen Yamal intii ay ciyaartu socotay. Warar kale ayaa intaasi ku darayeen kadib markii ciyaartu ay dhammaatay, weeryahanka Real Madrid Arda Güler uu buuq ka abuuray qolka labiska isagoo canaantay daafacyadii Turkiga ee sababta u noqday in Spain 6 gool ay ku galaado xulkooda. Güler ayaa la sheegay in Saad uu aflagaadeeyay saaxiibadiisa isagoo ku eedeeyay inay ceeb iyo fadeexad soo raacday una horseedeen isaga, halka warar hoose ay tilmaamayaan in xilligaasi qaar ka mid ah ciyaartoyda ay qorsheeyeen in baasaboorka Yamal la qariyo. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijinin sheekadan isku dhafan ee shirqoolka iyo weliba carada baasaboorka la waayay ayaa noqday mowduuca ugu xiisaha badan ee laga hadalhayo warbaahinada Spain. wargeyska Faransiiska ee loo yaqaan El Equipe ayaa shaaciyay in tababaraha reer Faransiis Zinedine Zidane uu si dhab ah u diyaarin garoobayo inuu qabto xilka tababaranimada ee xulka qaranka Faransiiska, isagoo isbedeli doona Didier Deschamps oo la filayo inuu xilka ka tago koobka adduunka kadib. Warbixintu waxay sheegtay in Zinedine Zidane horeyba ula yeeshay wada hadallo Laurent Blanc oo hore u tababaray Les Blueska si uu uga faa'iideysto waayo aragnimadiisa. Zidane ayaa sidoo kale inta wuxuu diyaariyay fikrad hordhaca oo ku saabsan qaab ciyaareedka uu doonayay inuu ka hirgeliyo xulka Faransiiska. El Equipe ayaa xustay in Zinedine Zidane si dhow ula socdo horyaalka Faransiiska ee tartamada Yurub ee kooxaha, gaar ahaan isagoo diiradda saaraya dhalinyarada soo baxaysa ee dalka. Intaa waxa dheer, Zinedine wuxuu tiirsanaan doonaa shabakadiisa ballaaran ee xiriirka dhow ula leh ciyaartoyda gaarka ah, kuwaasoo ay ku jiraan shakhsiyaad ka tirsan xiriirka kubadda cagta Faransiiska. kooxda Liverpool ayaa qaaday tallaabo ay ku xaqiijinayso mustaqbalka daafaceeda reer France Ibrahima Kanouté, iyagoo u gudbiyay wakiilkiisa heshiis cusub sida ay warisay in Daily. wadahadallada lagu wadaa inay socdaan maalmaha soo socda. Ibrahima Kanouté oo 26 sano jir ah ayaa heshiiskiisa haatan uu dhacayaa sanada 2026, balse Reds ayaa doonaysa inay kordhiso joogitaankiisa si ay uga hortagaan xiisaha sii kordhaya ee kooxaha Yurub, gaar ahaan Real Madrid oo la sheegay in wadahadal hordhac ay kula jirto daafacani. tan iyo markii sanadii 2021 uu kaga soo biiray kooxda Leipzig, Ibrahima Kanouté waxa uu noqday tiirka ugu muhiimsan daafaca Liverpool. xawaaraha, xoogiisa iyo kartidiisa kubadda qaybinta ayaa ka dhigtay mid lama huraana, isagoo ku guuleystay Premier League, sidoo kalena qayb ka ahaa nidaamka daafaca Klopp iyo kan haatan ee Arne Slot. inkastoo faahfaahin heshiiska cusub aan la shaacinin, go'aankan ayaa muujinaya rabitaanka Liverpool inay sii haysato mid ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan kooxda. tababaraha xulka Brazil Carlo Ancelotti ayaa lagu eedeeyay inuu u muujiyay ciyaartoyda Madrid kadib markii liiska xulka laga reebay dhowr xidig oo ugu muhiimsan, halka ay ku qasbanaadeen ciyaaryahanka Barcelona Rafinha in safar dheer uu galo sidii uu ciyaari lahaa kulamada isreereebka bishan.
sida ay qortay Mundo Deportivo. Carlito ayaa ka reebay liiska ciyaaryahanadooda Eder Militao, Vini Jr, Rodrigo iyo xidiga da'da yar ee Endrick, kuwaasi oo dhammaantood nasasho u helay Madrid. taa beddelkeed Rafinha ayaa lagu qasbay inuu la safro xulka isagoo xitaa ciyaaray 80 daqiiqo kulankii Chile. wariye kale oo Barcelona ayaa dhaleelay go'aanka Carlito isagoo yiri halka ay Vini, Rodrigo iyo Eder Militao Real Madrid nasanayaan. Carlito ayaa go'aansaday in Rafinha uu ku soo bilowdo kulan ay Brazil ciyaarayso Bolivia, kaasi oo ka dhici doona 4100 mitir meel ka sarreysa badda. waxaa xusid mudan in Brazil horeyba ay ugu soo baxday koobka adduunka sanada 2026 bishii July, taasoo dhalisay su'aalo ku saabsan sababta Rafinha loogu qasbay inuu ciyaaro kulamada ay natiijadoodu muhiim ahayn. Carlito ilaa bishii May 2025 ahaa tababaraha Madrid ayaa hadda wajahaya dhaleecayn inuu weli u janjeero dhinaca Los Blancos, xitaa in markaasi uu hogaaminayo xulka qaranka Brazil. weeryahanka Inter Miami Luis Alberto Suarez ayaa wajahay dhibaato kale kadib markii MLS ay kordhisay ganaaxii ilaa 9 kulan sida uu ku waramayo Marca. Luis Alberto Suarez ayaa markii hore lagu ganaaxay 6 ciyaarood, balse guddiga anshaxa ee horyaalka ayaa ku daray 3 kulan oo kale kadib markii la furay shaqaalaha farsamada ee kooxda Satles intii lagu guda jiray muran kulul oo ka dhacay garoonka ciyaarta marka ay dhamaatay. xidiga reer Uruguay ayaa ku biray Inter Miami sanadkii hore oo haatanba seegi doona qaybta ugu muhiimsan ee xilli ciyaareedka. maqnaanshiyihiisa ayaa dhabarjab ku ah kooxda maadaama ay si weyn ugu tiirsan yihiin khibradiisa iyo gooldhalintiisa. Suarez oo horey looga yaqaanay dhacdooyinka anshaxeed ee muranka badan dhalisay ayaa intii uu ciyaaraha ku jiray waxaa mar kale into boggiisa cusub ee fadeexada looga diwaan gelin karaa dacdadan. Inter Miami ayaa u baahan inay si degdeg ah ula qabsato maqnaanshiyihiisa iyagoo u dagaalamaysa inay si ahaato koox tartan xoogan ugu jirta horyaalka MLS-ka. khilaafka u dhaxeeya Madrid iyo qabanqaabayaasha abaalmarinta Ballon d'Or-ka ayaa mar kale cirka isku shareeray sida uu qoray Marca. warar ayaa sheegay in wafdi Faransiis ay u safreen Madrid si ay u dejiyaan xiisadda, balse kulanka lagama hadlin natiijo wanaagsan. xiriirka labada dhinac ayaa muddo la sheegay inuu jilacsanaa iyadoo Madrid ay dareensan tahay in ciyaartooydeeda aan si buuxda loogu abaalmarinin guulihii waaweynaa ay gaareen sanadadii lasoo dhaafay. mas-uuliyiinta kooxda ayaa horey u muujiyay caro iyagoo hay'adda bixisa abaalmarinta ay ku eedeysay eex iyo aqoonsi la'aan ku wajahan waxqabadka ciyaartooyda. socdaalka wafdiga Faransiiska ayaa loo arkay fursad heshiis lagu gaarayo, hase yeeshee waxa uu muuqatay mid sii kala fogeeyay labada dhinac inkastoo faahfaahinka kulankan si rasmi aan loo shaacin. hadda ila xog ogaal ayaa sheegaya in Madrid ay ku adkaysatay in xidigaheeda kooxda aanay si cadaalada markaasi looga yeerin, cadaalad ahaanna markaasi aan loola dhaqmin. arrintan waxay shaki gelisay sida mustaqbalka Real Madrid ay uga qayb qaadan doonto xafladda soo socota ee Ballon d'Or-ka iyo in xiriirka labada dhinac ay dib u hagaajin karo. taageerayaasha waxay u badan tahay cutub kale oo xiise leh oo ku saabsan khilaafka u dhaxeeya kooxda ugu guulaha badan Yurub iyo abaalmarinta shakhsiga ee ugu sharafta badan kubadda cagta ee Ballon d'Or-ka. halyeyga reer Portugal iyo Madrid Luis Figo ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka kaliya uu ka qaadan lahaa Barcelona uu yahay Pedri, wuxuuna hadalkaasi ku sheegay wareysi uu siiyey Betfair isagoo sidoo kale xusay haddii xaaladdu ay isbedesho inuu Federico Valverde u dooran lahaa Barcelona. ciyaaryahanka kaliya aan u saxiixi lahaa Madrid waa Pedri, haddii ay dhinaca kale noqoto waxaan saxiixi lahaa Valverde. waa ciyaartooy heer sare ah, mar walbana si joogta ay u muujiyaan qaab ciyaareedkooda. waa ciyaartooyda ugu muhiimsan labada kooxood ayuu markaasi yiri. doorashada Figo ayaa dad badan la yaab ku noqotay maadaama labada kooxoodba ay haystaan xidiga kale intoo waaweyn sida Kylian Mbappe, Vini Jr, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Rafinha iyo Paul Cubarsí. Figo ayaa sidoo kale xasuus gaar ku lahaa kubadda cagta Spain maadaama si weyn loogu dhaleeceeyay markii sanadii 2000 lacag 60 milyan oo kaga tagay Barcelona kuna biiray Real Madrid, taasi oo noqotay iibsashadii ugu muranka badneed abid ka dhacday La Ligaha dalkaasi Spain.